nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam dadow ina lilqabri daqda low najaa minha axadun lanajaa minha sacd ibni mucaad. dadow wuxuu leeyahay buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam, qabrigu qabasho ayuu leeyahay buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam. qof hadduu ka badbaadi lahaa sacd ibni mucaad saxaabigaa la odhanayay ayaa ka badbaadi lahaa buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam. sacd ibni mucaad wuxuu nebigu ku tilmaamay hada aladii taxaraka lahu carshu raxmaan. markuu dhintay carshu raxmaan baa ayaa u gariiray buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam. wafutixat lahu abwaabu samaa, albaabadii samada ayaa loo furay markii uu dhintay. washahidahu 70,000 min almalaa'ika, dhimashadiisii 70,000 oo malaa'ig ayaa ka soo qayb galay saxaabigaas. laqad damma dammatan uma furija minhu, wuu qatay buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam qabrigu, laakiin waa laga qaaday markii dambe. maxaan u shaqaysana kaa cadaabulqabriga? maxaa ummadda ka badbaadiya? ashahaada, qofka oo dariiqa ilaahay u shahiidooba. nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam, shahiidku wuxuu leeyahay ilaahay agtiisa 6 sifo. yukfaru lahu fii awali dafca, marka ugu horey uu shahiidoobaba ilaahay waa u dembi dhaafaa. wa yara maqcadahu min aljanna, meeshuu alla u diyaariyeyna markaaba waa la tusaa. wayujaaru min cadaabi alqabri, cadaabu qabrigana alla uu ka badbaadiyaa. waya'manu min alfazaci alakbar, argagaxa weyn ee qiyaamahana alla uu ka badbaadiyaa. wayudacu calaa ra'sihi taaju lwaqaar, taaju lwaqaarna madaxaa loo geliyaa buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam. wayuzawaju 72 min alxuuri alcayn, 72 xuuri caynna waa loo guuriyaa buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam. wayushafic fii 70 min aqaaribi, 70 qof oo qoyskooga wuu u shafeecad qaadaa buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam. waa shahiidka fadliga uu leeyahay, xadiiskuna waa saxiix. suuratu yaasiin oo la akhriyo waa lagaga badbaadaa. nebigu wuxuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam, hiya almaanica hiya almunjiya tunjiihi min cadaabi alqabr. wuxuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam, suuratu lmulk ama suuratu yaasiin waxay qofka ka badbaadisaa cadaabulqabriga, ayay ka mancidaa oy ka badbaadisaa buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam. xadiiskaasina waa saxiix. waxaa kaluu nebigu yidhi, man qara'ahaa kula laylatin jaa'at tujaadilu can saaxibiha, qofkii habeen walba akhriya waxay timaadaa iyada oo u shafeecad qaadaysa oo u doodaysa qofka maalinka qiyaamaha. xadiiskaasina waa saxiix. waxaa kaloo lagaga badbaadaa qofka oo xanuun caloosha ilaahay kaga rido. nebigu wuxuu yihi, man yaqtuluhu batnu, qofkii calooshiisu ay disho lam yucadab fii qabri, qabrigiisa laguma cadaabo. ama daacun ku dhaco ama intuu shuban ku dhaco ku dhinta, nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, kaana qabriga laguma cadaabo. xadiiskaasina waa saxiix. waxaa kale oo lagaga badbaadaa mowtu ljumuca, jimcaha oo la dhinto. nebigu wuxuu yihi, man maata yowma aljumuca, qofkii dhinta maalinka jumcaha, aw leylata aljumuca, ama habeenka jimcaha, wuqiya fitnata alqabr, fitnatu lqabri waa laga badbaadiyaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam. ilaahay cadaabulqabriga haynaga badbaadiyo.